garowe waxaa ka bilowday olole raashin dubis iyo hilib shiilid oo qayb ka ah taakulada iyo taageerada shacabka ee ciidamada Puntland gaar ahaan kuwa ku qulqulaya tukaraq oo maalmo ka hor maamulka Somaliland uu duulaan ku qabsaday. ololahan ma ahan mid ay wado dawladdu, waxaa qabanqaabadiisa iska leh dhalinyarada ku nool magaalada Garowe. xaafadaha magaalada qaybo kamid ah ayaa laga bilaabay hawlo lagu diyaarinayo cuntooyin fudud oo ciidanka la doonayo in loogu geeyo goobaha ay ku sugan yihiin. waxaana barbar socda ololahan ururinta agabyo kale oo la sheegay inay qayb ka yihiin baaqi maamulka gobolka Nugaal iyo madaxweynaha Puntland. dhalinyaro sababshay iskaatay ayaa barnaamijkan keenay dad waxaan ugu soo istaagay xawayaha dowladda hoose oo hadda galkayga taagan iyo gudoomiyaha gobolka isaga u mahadcelinayno. tani waxay muujinaysaa inaan ka jawaabino baaqi madaxweynaha Puntland kasoo yeeray ee ahaa shacabka Puntland ha taageereen ciidankooda iyo baaqi isaguna ku xigaya gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan degmada oo dhan ay ku hanteen in ciidamada shacabka Puntland la garab istaago. ciidamada isaan u garab taagnaan jirnay ayaan garab taaganahay weli waa muqadas maxaa yeelay waa kuwa markasta difaacaya waa kuwa markasta aan ku jirno nabadda. barnaamijkana wuu socon doonaa maanta bilo weeye laakiin waxaan rajaynaynaa inuu sii socon doono. waa mudan yihiin in ciidamada la garab istaago, waa ay mudan yihiin in hiil iyo hoob laga garab istaago. ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa inay abaabulkaasna waa soconayaan dhammaan xaafadaha magaalada iyo guud ahaan degmada Garowe waa ka socdaa, gobollada kale iyo degmooyin kale waa ka socdaa. waxayna arrintaasna ka jawaabaysaa baaqi madaxweynaha dowladda Puntland uu ka soo jeediyey waa in la garab istaago ciidanka difaaca Puntland iyadoo laga jawaabaya ayaa sidaas lasoo abaabulaya. waana dhaqan iyo caado hore loogu yaqaan dadka reer Puntland inay raadiyaan midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, haddana ay ka midaysan yihiin iska celinta cadow kasta ee gaangaansada oo gardarro iyo dulaan ku soo qaada inay si dhab uga jawaabaan. dhaqan lagu yaqaan bay ahayd wixii layna ku yaqaan ka jawaabaynaa. cid aynu haatan innagu gardarro la raadsanayna ma jirto, ciidan wax u daba xaqiiqeynaa ma jirto, ciddayna ka soo ku xadgudubtan hadda waxay mudan tahay inayna ka hesho waa wadajirkeenna iyo midnimadeena iyo ciideena iyo dhuleedana aynu tusno waa waxayna socon. Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran.